bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaba aad noo daawanaysaan waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka xogta wararka ee TV-ga Galmudug. barnaamijka xogta wararka haddii ay weyno uu qadarana qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xarunta madaxtooyada ee Dhuusamareeb waxa uu kulan casho sharaf ah ugu sameeyay qaar ka mid ah dhalinyarada reer Galmudug. tababar lagu baranayo ka hortagista askareenta isla markaana ay bixinayaan qaar ka mid ah khubaro ka socota wasaaradda difaaca ee xukuumadda Soomaaliyana waxa uu magaalada Dhuusamareeb uu uga furmay qaar ka mid ah saraakiisha amniga maamulka Galmudug. mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Galmudugna waxa uu dowladda dhexe ee Soomaaliya uu ku eedeeyay inay wadaan abaabul doorasho halka ka qabsoonta. guddiga gobna waxa ay ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo. qodobadaas iyo wixii kale oo nagu soo kordha ayaad barnaamijka xogta wararka aad ku daawan doontaan. maxamed cabduqaadir silfar ayaa barnaamijka soo saaray anigoo Yuusuf Maxamed Axmedna waan idinla socodsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka xogta wararka. hagaag daawadayaal markan ku soo dhawaada qodobadii aan idin dulmaray oo intaas markan ka faahfaahsan oo barnaamijka xogta wararka ah aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah dowlad goboleedka Galmudug oo kulan casho sharaf ah ugu sameeyay qaar ka mid ah dhalinyarada reer Galmudug. hadaba madaxweynaha ayaa halkaasi waxa uu ka jeediyay khudbadan. dadkeena inaan isku kalsoonaano isku tashanno kuwa nabadda iyo wanaagga ka soo horjeeda aan ka wada hortagno waa loo baahan yahay. dhalinyaradu waa ubaxa geedka markuu rabo inuu midho dhalo ubax uu dhaliyaa. ummadduna markii ay noolaanaysa ama badanayso ubax baa soo baxa. ubax waa dhalinyarada. ubax hadduu fiican yahay midho fiican baa soo baxa. adinku haddaad fiicnaataan waa fiican tihiin bee waa hubaaye wax fiican ayaa soo baxaya insha allahu tacaala. in amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo sidii carradaani nabad u ahaan lahayd oo aan ku sii socon lahayn aad baa naloo ka dhabqinayaa. waad og tihiin waxyaalo badan baa dhacay asbuucyadan. gaalkacyay ka dhaceen, halkay ka dhaceen, cadaaday ka dhaceen, meel walbay ka dhaceen. xaaladaasay ka dhacda balanballe dhibaato. waxaasoo dhan inay istaagaan oo joogsadaan dowladnimo iyo dadnimo iyo amni in laga shaqeeyo unbaa loo baahanya. annaga intii waxqabad iyo tabari tahay waa ordaynay. haddana waxaan rajaynaynaa inaan ka sii kobcno ilaahay hadduu nagu simo aanu wax wanaagsan qabanno ayaan u baahanay. sidoo kalena qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulanka casho sharafta ah ayaa iyana dhinacooda waxa ay ka hadleen munaasabadda casho sharafta ah waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. waxaana dhex fadhiya nabadoonkii Galmudug ama madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf. runtii madaxweynuhu waa ku sharfan yahay waana lagu yaqaanay inuu kulamada noocaan ah oo bulshadiisa uu kuurgalayo mar walba oo qabto si gaar ah dhalinyarada kala duwan oo gabdhaha wiilal halkaan nooca ku casuumo oo kula kulmo madaxtooyadii isagoo kala hadlaya masiirka Galmudug iyo howlaha kala duwan ee
galmudug hor yaalla. runtii waxaan leeyahay caawa fadhigan aan meeshan ku fadhino ama shirkan waa forum aad u wanaagsan. dabcan runtii waxaan leeyahay waxa soo curiyay maskax aad u fiyow oo ah maskax isu horumarka galmudug ka shaqaynaysa ayaa soo curisay. waa mid u baahan in la sii xoojiyo mar walbana la mideeyo ummadda. fadhigan oo kale waa mid ay isku wareysanayaan dee madaxdii iyo is hor fadhiyaan dhalintii. salaanka bacdi caawa farxadeyda ma la soo koobi karo. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan caawa anagoo dhalinyaradii reer galmudug ahayd wixii dhuusam reeb joogay inaan maanta caawa la joogno madaxweynaheeni uuna noo sameeyey casho sharaf. waxaan aad ugu faraxsanahay oo khaas ahaan ugu faraxsanahay madax iyo shacabkeeda oo wada tashanaya. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka xogta wararka ee TV-ga Galmudug. tababar lagu baranayo ka hortagista askareenta caruurta ayaa waxa uu u furmay qaar ka mid ah saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka Galmudug, waxaana tababarkaasi bixinaya khubaro ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. tababarkan waxa uu ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. furitaanka tababarkaasi waxaa ka hadlay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf. in aan maanta halkan seminar nooga furmo saraakiisha amniga ee waqti badan ka shaqaynayay amniga in xirfadooda lagu daro in ay ogaadaan walow aan ogahay in sharciga dastuurka dowlad goboleedkeegana uu ku jiro midka federaalkana uu ku jiro oo qof walbo annaga naga midi uu og yahay in caruurta in askar laga dhigaa inaysan sharci ahayn oo qof kasta oo askariya oo laga dhigayo askari laga dhigayo da uu ku gaaraa jira oo markuu dhaafana uusan askari noqonaynin markuu ka yaryahayna uu askari uusan noqonaynin. saas daraaddeed maadaama dad badan uu sheegayo khaasatan ciidamada halkan jooga ee aadka ugu guulaystay la dagaalanka argagixisada oo ahaa ciidankii ahlu sunna wal jamaaca haddana galmudug u guuray waxay ku daraan liiska inay tahay dadka shaqaaleeya askarta caruurta shaqaale askareed ka dhiga. sidaas marka horta waxaan xubnaa inaan u caddayno beesha caalamka dowladda federaalka dadka bulshada oo dhan inaysan jirin runtii oo aanan weli hadda annagu aanan arag iyadoo sidaas tahay haddana sidaysan dib ugu dhicinin ama dadkii aaminsanaa inay waxaasi jiraan la ogeysiiyo inaan diyaar u nahay inaanan shaqaalaysiin ama aanan ciidamayn askarta aanan askar ka dhigan macnaha dadka da-da yarta ee caruurta oo jil dareenka. sidoo kaleeto mashruucan waxaa kaloo loo baahan yahay in aanu ka dadaalno sidan awalba uga dadaali jirnay dadka caruurta ee al-shabaab oo askarta ka dhigtay sidii looga saari lahaa fikirka khaldan oo loo wacyigelin lahaa loogana dhigi lahaa dad bini aadan ah oo aan dhibkii la geliyey ka baxay oo dadka qaadiga sida u shaqaystaan u shaqaysanayo. arrimahaas hadda marka maanta uu seminaarkan ku saabsan yahay runtii waa arrin noo muhiim ah waana arrin ka qayb qaadanaysa amniga iyo sumcadda ciidanka amniga ka shaqaynaya. dadka noo soo abaabulay oo wasaaradda gaashaandhiggu ka mid tahay waanu u mahad celinaynaa oo awal u tahay. halkaana hawada salaam baan uga marinaynaa wasiirka gaashaandhigga ee taliyaha ciidanka xoogga maadaama ay tahay amnigu mar walbaba inuu isku xirnaado siyaasaddu nooc kastaba ha ahaatee. ciidanka saraakiisha xukunta ee halkan joogtana oo runtii mar walba ku ammaanan in ay ka qayb qaataan amniga si wanaagsan uga qayb qaataanna soo diyaargarowga u soo diyaargaroobeen seminaarkan si ay u daboolaan dantii laga lahaa iyakana waa u mahad celinayaa. maantana seminaarka waa noo furan yahay. hagaag weli waxaad daawanaysaan barnaamijka xogta wararka. haddaba mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho waraysi uu siiyay TV-gan Galmudug waxa uu kaga hadlay oo uu dowladda dhexe ee Soomaaliya uu ku eedeeyay in ay wadaan abaabul doorasho ah. haddaba arrimahaas waxa aynu ka wareysanay siyaasi Cawil Maxamed Xuseen. adeer ceeryaamo roobna qoweyda waxaan ku sheegay waxaasi war ayay ka haayeen waray ku soo idlaadeen sababtayta markii hore la dhex dhigayaba waxaan waxba loo hayn aysan waxba u hayn ayay ahayd. marka ummadda reer Galmudug waxaan jirin huuhaa
huuhaa la rabo dad qalbigooda in lagu dabaqo ayay ahayd taagta intaas ka amase waxaad leedahay waan hufnaan baa jira adeero markii horeba uma samaysnayn loomaba diyaarsanayn in dadka reer galmudug wax la taro looma diyaarsanayn saa ninka duminaya miyaa dhisaya wixii yaraayeen haysteena la duminayaa ma dekedaa loo dhisayaa wadooyin labadii heshiiskoodii oo dhibaato loo arkaa heshiiskaa dhibaato loo arkaa ma dadka heshiiskii shaqada ciddii qaba lahayd inay meesha sii joogta ama inay sii wada jiraan cidda ay dhibayso ma wax taraysa dadka reer galmudug waayahay waxgaradka deegaanada galmudug iyaga laftarkooda waxaad ka dhawaajisay inay jiraan dad loo adeegsanayo laftarkooda deegaan ka soo jeeda magaci xambaarsan iyaga laftarkooda fariinta lagu shubo loo adeegsanayo maxay tahay kuwaas fariintaad u jeedinayso kuwaas waxaan u jeedinayaa waa labo qolo waa qoladii siyaasaddii rubca qarniga ahayd muddadii rubca qarniga ka badnayd siyaasaddii wiilku kori ahayd ku soo noolaa ama aan dhihi karo waa political gangis waxaan leeyahay dadka reer galmudug wixii aad ka heli rabteen oo ilaahay inkaga calfo aad ka hesheen magac iyo maal intaa ka badan ha u geysanin aan leeyahay oo intaa ka badan ha u geysan iska daaya iyaguna way garaadsadeen oo saaka way soo jeedaan oo ma dhacayso in nin wiilkiisaa wiila lagu koriyaa waa ka qaangaareen ayaga kuwaasaan leeyahay kuwa dhaqanka ah ee la adeegsanayo ee sida qaldan wax loo tusayo waxaan leeyahay isweydiiya markii aad doorataan halkay inkaga tegi jireen markii waqtigu ka dhamaadana waa kuwa idin wici jira marka in laydin wacaaho waqtigaa gebagabaahe garawsada oo maalin kasta yaan maalin laydin waco iyo maalin taleefanada laydinka dawsado la isugu kiin darinaan leeyahay waayahay sidaan warar hoose helayno ay sheegayaan waxaa jira qaar ka mid ah deegaanada galmudug oo ay dawladdu u adeegsanayso in ay dad iyadoo ay dirtay lacagihii loogu talagalay dawladda dhexe dawlad goboleedka galmudug loogu talagalay si hoose dadka lagu maalgelinayo iyadoo la doonayo in kala qaybinta looga faa'iideysto arrinka maxaa kala socda arrintaasi ma aha mid oo shalay bilaabat waxaa lagu maalgeliyey wixii gobolkan banaadir ka soo bax iyo wixii dawladdu si kaleeta ay saaxiibada siyaasadda ay la leedahay caalamka ay ka heshaba miisaaniyaddan oo aan miisaaniyadda qaranka ku jirin oo galmudug midii ugu jirtay iyo mid kalaba isugu jirta ayaa loo adeegsada baabi'inta galmudug tusaalehaan ka soo qaad waxaa hadda cadaada jooga nin la yidhaha axmed baasto kuma riyoon inuu cadaada tago waa la geeyey adeer ciddi geydana ayaduna way ogta dadka reer galmudugna way og yihiin ujeedka laga lahaa waxay ahayd inta hadda aad aragtay oo dhibaataa in loo geysto dadka ciddi geyday intaasay dad cidda geydana cid laysu qarinaya maaha waa dawladda dhexe waa madaxda qaranka dadka reer galmudug marka anoo fursadda uga faa'iidaysanay dadka reer galmudug waxaan rabaa inaan hal eray oo kooban aan halkaa ka idha waxaan iyaga leeyahay dadka reer galmudug dadka ayaa waxaa laysku hayaahi ma aha horumarin galmudug ee waxaa laysku hayaa galmudug waan duminayaa iyo dumi maysida waa la dhisayaa axmed ducaale galmudug hoggaankeedii u ahaa inuu hoggaamiyo diyaar u ahaa inuu dib u heshiisin karsiiyo shaqeeyo diyaar u ahaa dawladdii dhaxana intaasi way dhibtay marka dadka reer galmudug waxaan leeyahay aayihiina ka tashada fekera meesha soomaaliya ay mare waad aragtaan wararka qiyaaliga oo dadka qaar isu sheegayaan oo ah dawladda dhexe annaga madaxda dawladda dhexe galmuduga madaxweynaha galmuduga ra-iisul wasaariyaha galmuduga wasiirka arrimaha gudaha galmuduga ninka aqalkii sare galmuduga adeer dheeda roob noqon weyday ha ku ajarminina tashadaan leeyahay iyaga waayahay si guud waxyaalaha hadda socda waxaa qayb ka abaabulka doorasho aan waqtigeedii la gaarin dawladda dhexe inay iminka wado arrinkaasi shacab iyo maamul deegaanada galmudug rabitaankooda toona kuma jiro maxay tahay fariintaada iyo aragtidaada ku aadan fariintaydu waxay tahay dawladda dhexe haddii ay doorashadaas ay ku sheegay abaabul aysan ka leexan toodaa la abaabulaa ka hor ayagaa tooda la abaabulaa ka hor waxaan la rabaa inaan halkaa uga sheego haddii
nin kastaba mandate-ka la siiyey aan lagula shaqayn madaxda sare qaranka mandate-keeda ayadana waa soo gaabaha waayahay ugu dambeyn si guud fariinta ku aadan horumarka iyo in ay arrimaha laga waantoobo ee aad u jeedinayso dowladda dhexe warka waaba soo gaabiyada dowladda dhexe haddii wixii lagu heshiiyey oo ayada lagu doortay sidoo kale heshiisa lagu doortay Axmed Ducaale dadka reer galmudug heshiis bulshay lahaayeen heshiiska bulsho waxaa ka soo baxay 89 xildhibaan 89 xildhibaan ayaa wakiilka ah 89 Axmed Ducaale u doorteen hoggaanka u idmadeen Axmed Ducaale wixii ay kula ballameen uu ka shaqeeyay guddi doorasho haddii la qabanayo iyo xilliga doorasho dhacayso waxaa mas'uuliyaddeeda iska leh golaha fulinta ee galmudug yaa hoggaan u ah Axmed Ducaale Geela Xaafo ayaa u ah haddii marka dowladda dhexe ay ka shaqayso arrinta magaalada Muqdisho bartankeeda ayaa madaxweynayaal kale soo degaya intaasaa la isu sheegaya qaybihii dambe ee barnaamijka xogta wararka ayaan isla soo gaarnay daawadayaal markan haddii aynu eegnana magaalada Gaalkacyo guddiga gob waxa ay ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo Professor Umar Salaad ayaa arrimahaasi Galmudug TV kala hadlay Bismillahir Rahmanir Rahiim ugu horeynta waxaan salaamayaa dadka daawanaya Soomaaliyeed gobolkan Galmudug degan ama degan Soomaaliya oo dhan shacabka Soomaaliyeed baan salaamayaa kabacdi waxaan doonayaa inaan ka warbixiyo mashruuca wadada Gaalkacyo iyo Hobyo oo muddo socday waxaan doonayaa inaan uga warbixiyo dadkii taageerayay xaaladdu marayso iyo siduu wadadu soo maray muxuu ahaa muddadu soo socday waxaa mashruucaan u bilowday 3 sano iyo bar ka hor wuxuuna ku bilowday waa mashruuc bulshadu ay dhisanayso oo aan dawlad iyo hay'ad midna ku lug lahayn waxa weeye ujeedooyin badan buu leeyahay midda koowaad waxa weeye in loo furo isha dhaqaale oo gobolkan Galmudug leeyahay iyo gobolada dhexe oo dhan iyo gobolada dariskaaba il dhaqaale in loo furo meesha badda ugu dhow oo ah Hobyo aan wada lahayn in wada laga dhiso dabadeedna dekadii la dhiso waayo wadada ka horeysa dekada muxuu ahaa diyaarad wax looga soo qaadi maayo baabuur wax ka soo qaadaysa wada ay martaa loo baahan yahay wadana dhulka kuma oolin dhul bacaad oo gaarida baabuurta ku burburto oo gasho habeena ku dhaxdo ayaa ahayd ilaa mahadi maanta 100 iyo muxuu ahaa 10 kiiloomitir oo ugu darnaa oo bacaadka ahaa oo boolaha ahaa oo baabuurtu ay mari karin hal baabuur oo loo yiraahdo TM mooyaan lagu dheerdheer aan baabuur kale mari karin waa la soo dhisay ilaahay waa mahad iska leh waxa kale oo marka labaad mahad dadkii taageeray oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo ka tirsan dadkan Galmudug iyo Soomaalida kale waayo gobol aan la ka taageerin oo Soomaalida degta Puntland Somaliland Jubaland muxuu ahaa Koonfur Galbeed Muqdisho intaas oo dhan waa na taageereen yeesan badnaanba laakiin dad baa naga taageeray dadka falka iyo khayrka iyo sadaqada jecel oo dhulka iyo muxuu ahaa in la dhisto dhulka la dhisto dadka wax la taro dadka aaminsan baa na taageerayay muxuu ahaa hatta dadka reer Galmudug 100% nama taageerin 100% intii ugu yarayd oo oran karo 3% qof masawaallo ayaa na taageertay sidaas oo tahay taageeradu wax weyn bay tartay wadadaas 100 iyo muxuu ahaa 10 kiiloomitir oo la soo dhameeyay intii ugu darnayda lacag fara badan baa ku baxday 2 milyan waxaanu ka gadnay cagafyo iyo iska rogooyin iyo booyado iyo baabuur lagu adeego oo fara badan oo maalintii aan bilaabayna aan xabad ka haysan ayaanu maanta muxuu ahaa ururka gob leeyahay waa hanti joogta waa company dhan oo guuraya ilaahay mahadiis
oo muxuu ahaa asagu aan u baahnayn muxuu ahaa taageero mooyaane aan qalab u baahnayn kale ayaa maanta jira muxuu ahaa markaa waxaan u mahadnaqayaa dadkii taageeray gudaha iyo dibadda oo Yurub iyo Amerika iyo Canada iyo Afrika qaasatan Nairobi Kenya iyo South Africa iyo meelo kale oo Afrika ka tirsan iyo gudaha Soomaaliya dadka jooga oo taageeray waan u mahad celinayaa waxaan leenahay ilaahay adduuniya aakhira waxa idinka abaalmariyo samafalkaas iyo sadaqada aad dhiibateen oo ay muxuu ahaa dadkiina ku taageerteen wadooyinka waa la wada leeyahay wadada Hobyo iyo Gaalkacyo waxay la mid tahay wadada muxuu ahaa Xamar iyo Boosaaso isku xirta Xamar iyo Burco isku xirta Xamar iyo Kismaayo isku xirta taasoo kale noqonaysa wada qabiil leeyahay maahan wada gobol leeyahay maahan wadooyinka waa la wada isticmaalaa airportooyinka waa la wada isticmaalaa dekadaha waa la wada isticmaalaa waxa la kaabayaasha guud oo dhaqaalaha ee dalka Soomaaliyeed weeye marka waxaan u soo jeesanayaa oo aan si gaar ah ula hadlayaa dadka gobolka Mudug iyo Galmudug degan baan la hadlayaa oo wadadaan ay qusayso waxa weeye walaalayaal wadada markii hore waxa taageeri jiray si xoog loo taageeri jiray dadka dibadaha jooga dadkii dibadaha jooga xogaa wariyahan in caajiseen badmooda waxayna markaas ku doodayo war dadka gudaha jooga waa naga lacag badan yihiin hadday Xamar joogaan hadday gobolada joogaan waxay ula wareeg waayeen xilka anagu dad cayr qaataan nahay shaqaalaan nahay intaasaan wadada wadnay waa markoodii waqtigoodii weeye wadada hawadeen oo wadada ayaga aan uga baahi badan ay u istaageen sidaa darteed sanadkan hadda aan ku jirno waxaanu soo jeedinay barnaamij aanu ka bilownay magaalada Xamar iyo Gaalkacyo oo aanu dadka ugu baraarujinayno wadada sanadka kan ayagu inay dhisaan oo la wareegaan magaalada Gaalkacyo hadda aan joogo ayaan tusaale u soo qaadanayaa waxaan sameynay dhalinyaro jaamacadaha iyo iskuulada sare ka baxday oo guddi ah oo mutadawiciin ah oo dadka diiwaan gelisa oo lacag qof walba wax bixin kara ku qorta computer la geliyo halka marka laga soo waco dadka ama iyaguba ay bil kasta soo tuuraan telefoonada la siiyo lacagta lagu tuurayo dadkaas ayaan sameynay barnaamijka waxaan u bixinaa ayatiin dadku ayatiinkiisa inuu dhisto ololaha ayatiin baa la yiraahdaa waxa weeye in Gaalkacyo magaalada la yiraahdaa ay sanadka kan muxuu ahaa 2019 ayadoo ay wadada wado oo dhisto marka waxaan u baaqayaa halka kan dadkii la diiwaan geliyay oo reer Gaalkacyood yariyo weyn ganacsade iyo nin mataqaana shaqaalaha nin miskiina nin muxuu ahaa gabar shaagada gabar jaad meel u fadhida nin shaqaale ah intaas oo dhan waa dukaan leh nin maqaayad waa la diiwaan geliyay marka waxa laga rabaa diiwaan gelinta isdiiwaan geliyeen oo lacag bilaha ah oo 12 bilood soconaysa ay isku qoreen markii loo soo jeediyay oo lagala mataqaana laga yabo hasaday oo la weydiistay ay aqbaleen lacagtii inay soo tuuraan oo ay nambaradii la siiyay oo guddiga goob ay ku soo tuuraan ayaan ka codsanayaa waxa weeye waxaan dhisaynaa aniga idin la hadlaya oo nin oday oo gaboobay ah iyo ragga kale oo guddiga ay wala jiro sidoo kale ah anagu isticmaali mayno wadadan wax mushtarina ka furan mayno haddii kale lacagna kama qaadano danahayga uga soo dhaqaaqnay oo aan cadaadda u taaganahay waxa weeye inaan bulshada u danayno oo bulshadu mataqaana ay ka baxaan dhibaatada xiriiriga dhaqaale ay ku jiraan ay ka baxaan muxuu ahaa ay yeeshaan hanti yeeshaan il dhaqaale yeeshaan sida muxuu ahaa walaalaha dekadaha leh oo hareerahooda ah sida mataqaana Puntland Somaliland Jubaland Muqdisho dadka dekadaha leh oo nool inay ka mid noqdaan walaalaha degan mataqaana gobolka muxuu ahaa Galmudug degan inay ka mid noqdaan baan doonaynaa oo Soomaali siman oo walaalaha oo wax istaraysa oo mid garabsanaya aanu noqono Soomaali haddaanu nahay muxuu ahaa marka waxaan isku waabinayaa
oo idinka codsanaya inaad u istaagtaan anigoo odagaana inaan albaabadiina soo istaago oo garaaco oo idhaahdo war lacagtii keena waddada waa laga fiican yahay waxa weeye qof gabar walba iyo nin walba ha isxilqaamo oo mataqaana haddii ilaahay kuu roon yahay ha xasuusto ballankii uu galay sanadka kale inuu lacagta wado bil walba lacagtii lagu qoray soo tuuro maxaa cid u imaanaysaa ma jirto waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa qof nin la soo bariyey geel ma dhiciyo haddaad tidhaahdo war geeli waa lala tegay nin uu soo tooso geeli ninkaasoo kale geel ma dhiciyo meel dhaxo ka soo noqonaya markii geela lagaa dhaco caadadu waxay ahaan jirtay in warmaha la boobo oo geeli la soo dhiciyo tanoo kale waxa weeye waa ayatiinkii waa noloshiinnii waa mustaqbalka carruurtiinna waa mustaqbalkiinnii inaan muxuu ahaa haddii mar laydiin sheego inaan maalin walba laydin xasuusiyo oo laydiin yimaado ma ahan waa inaad u istaagtaan adinku oo aad bixisaan xaafadaha magaalada gaalkacyo albaabada lacag baa ku qoran $2 baa albaabka bishii ku qoran iskuullada waan ku qornay ilmaha iskuulka dhigta iskuulka hoose dhexe $1 iskuulka mataqaanaa sare iskuulka hoose dhexe $0.5 iskuulka sare $1 jaamacadda $2 waxyaabaha caynkaasaa lagu qoray lacagtu saasay u kala sarraysaa ilaa 100 bay soconaysaa ninka ugu lacag badan ugu taajirsan si loogu fududeeyo qof walba inuu ka qayb galo culays ku noqon oo bil walba wax soo tuuri karo muxuu haddii ay isku biirto oo sanadkii mar la yiraahdo waa ku xuslaanaysaa marka waxaan xasuusinayaa walaalayaal waa idinka codsanayaa inaad noqotaan dad wadaniyiina dad samafalayaal dad khayrka jecel dad naftooda mustaqbalkooda dhisanaya oo mataqaanaa inaad noqotaan oo hawshaas aad u guntataan oo aan ciduna idin xasuusin haddii saas ay yeeshaan waxaanu rajaynaynaa oo ilaahay ka rajaynaynaa waddadu inay gaalkacyo soo gasho alayskaygu waxa weeye muxuu ahaa geelo bixiya aan gaalkacyo gaarine ama ganiga bixiya aan gaalkacyo gaarine gaalkacyo markii la gaaro baabuurta yaryar oo bajaajka iyo mataqaanaa markeedka iyo kuwa la mida iyo hoomeyda iyo baabuurtii waaweynaayo aan tagi karin marka hore la xandhumeylihii inay hubiyay gaalkacyo ay mushaaxaan oo isku socdaan badeecadda lagu qaadayo xoolaha lagu qaadayo inay raqiisaan oo u jabaan dadka hubyo markaa in wax ka soo degaan ayay noqonaysaa waddada markaan dhammayno waxa weeye higsigayagu inaan dekadii bilowno oo gacanta la galno ayana dhisno markaa waxaa loo baahan dadku noloshiisa inuu dhisto cid u dhisaysa oo u imaanaysa ma jirto dowladda dadku waxay dhahaan dowladda waxaa dhista dowladdii aaway hay-adihii aaway hay-aduhu waa ajnabi maxay kugu dhisayaan waxay rabaan xoogaa badara inay qaybshaan oo ay markaas yidhaahdaan dadka ariga iyo geela raaca ka soo kaceenoo magaalaha yimaadeen $100 baan siinaynaa si ariga iyo geelu kaaga baaboo ayay doonayaan hay-aduhu wax ma dhisaan waxa weeye badar bay qaybshaan dadkii xoolaha iyo mataqaana ka soo jeediyaan inay ka tagaan xoolaha iyo beeraha ka tagaan ayay ka shaqeeyaan ma aqaan ujeeddada ay kale yihiin laakiin waa inaan taa fahamno weeye hay-ad wax noo dhisi maayaan nafteenna iyo ilaahay in baan la kaashanaynaa nafteenna iyo xoolaheennaan ku dhisanaynaa caqligeennaan ku dhisanaynaa dadnimadeennaan ku dhisanaynaa dowladda markaan ka hadalno dowladdu ayadaas ka tawaana dowladdu waa jilicsan tahay hadday tahay midda dhexe iyo midda gobolkuwa dowladda jilicsan weeyo u halgamaya say u noolaan lahaayeen xagahooda ugu istaagi lahaayeen marka waqtiga allahna gaarsiiyo laakiin waxaa idiin sheegayaa dowlad iyo dowlad la-aanba gobolka kan wax muxuu ahaa 100 sano in ku dhow oo ama talyaani dowlad ka ahaa ama soomaali dowlad ka ahayd dalka gobolkan waxba looma dhisin 100 sano marka wixii aad muxuu weydeen iyadoo dowladdu dhisan tahay dowladdu waxay dhisan tahay dowladdan mataqaana jilicsan ka heli miisaan marka waxa weeye halkaas maaweelada beenta inta la iska dhaafo aan dalkeena dhisano waa dhisan karnaa ilaahay waana nala qabanaya haddana guul weyn baan gaarnay inta kalena waa dhammaystiran karnaa marka waxaan intaasaan kusoo goonayaa hadalkii aad iyo aad baad umahadsantihiin intii waddada taageertay iyo inta taageeri doonta waa ducaynaynaa allah barakeeyo adduunkooda iyo aakhiradooda allah u barakeeyo dunyadooda iyo dadkooda allah u barakeeyo muxuu ahaa maalintaas aakhiro
siraadka mid ay sadaqadaasu ay ku gudbaan allah uga dhigo wax jidka siraad uga gudbaan waayo nabigeena waa noo sheegay sadaqada waa la isku daweeyaa balaayo soo socotay kaa xijaabtaa aakhira miisaanka lagu saara reerka iyo caruurta iyo maalka loogu xirsi xiraa marka waa sadaqo masaajidka lama tahay wadadu dadka markii aad wadadu dhisanto ummadoo dhan maraysa waa ducaynaysaa dadkii umulihii isku go'ay dadkii gabdhihii uurka lahaayee isku dhimanayay ayaa mataqaanaa degdeg u soo gaaraya waxaa adeeg loogu samaynayaa dadkii dhibaataysnaabaa adeeg loogu samaynayaa badeecadii waa kuu maraysa xoolihii waa kuu maraya xataa xoolaha hayaanka ah waddadan hadda dhisnay yaa waxaad moodaa qulqulhaya sidii biyihii qulqulhaya waayo waddo ay maraan ma lahayn carradaas waa carro aan waddooyin fiican lahayn oo xooluhu maraan marka cid walba kuu ducaynaysaa waddada hareeraheeda warar biyahan ka dhisnaa waxaa cabo dadka waxaa cabo xayawaanka waxaa cabo shimbiraha intaa waa ducaynayaanoo wixii waddadaa taageeray iyo wixii dhisahayey ayay u ducaynayaan marka waxaan leenahay go-aan baanu leenahay haddii alla idmo meeshii go-aan jiro oo rabitaan jiro oo ay jiro mataqaanaa muxuu ahaa caqli saliima oo hogaaminayaa jiro waa guusha waa la gaaraa markaasoo kale guushu waa dhowdahay ee aanu dhammaystirno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xogta wararka waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan cabduqaadir maxamed silfar ayaa barnaamijka soo saaray anigoo ah yuusuf maxamed axmedna halkan ayaan idinkaga tabinayay dhinaca iyo weliba kaamiradana waxaa ka qaabeynaya iyo farsamadaba bedel tani barnaamij caankan oo kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo